السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتضبط بشهر ربيع الأول سنة كنا فربقل فرطانية تضبط تاريخ ذا هجرية وصباحنما سبتي ميلاديودنا ay ku beegan tahay 30 bisha 8 sanadka 2025 qodobada ugu waaweyn barnaamijkeena aroornimo saake waxa kamida Israa'iil dagaalkii isballaarinta Gaza waxa looga dilay 11 askari iyadoo afar kalena nolosha looga qabtay waxa ay wajahaysaa dagaalkii ugu waqtiga dheeraa foolka foolo oo dhexmaro militariga Israa'iil kooxaha iska caabinta musiibo weyn ayaa halka Israa'iil ku qabsatay warbixin yaab leh iyo macluumaad ku saabsan dagaalka heerka uu marayo iyo wixii ugu dambeeyay ee halka ka dhacayeen barnaamijka idinku haynaa qodobada sidoo kale saaka barnaamijka aad ku maqli doonto iyana waxa kamida militariga Israa'iil oo khiyaano weyn Gaza loogu dhigay dabin yaab leh oo kooxaha iska caabinta halkaas ay ku diyaariyeen iyo warbaahinta caalamka si yaab leh u faahfaahinayso maxaa ku qabsaday kooxda Netanyahu Gaza iyana macluumaad iyo warbixin cajiib ah ayaad ku maqli doontaa qodobada sidoo kale aanu barnaamijka idinku haynayna waxa kamida Abu Ubayda afayeenka garabka military ururka Hamas ee Al-Qassam ayaa isna jeediyay khudbad saameyn leh muxuu kaga hadlay iyo digniinta uu diray heerka ay wax marayaan iyo qodobo kale ayaad maqli doontaa qodobka ugu dambeeyana waxaan idinku hayaa hogaamiyaha Falastiiniyiinta daanta galbeed Mahmoud Abbas ayaa cunaqabateyn lagu soo rogay isagoo gabi ahaanba loo diiday in uu ka qayb galo shilka bisha 9aad ee hadda bilaaban doonto maalin kadib ee 9aad inuu ka qayb galo New York looga mamnuucay maxay tahay sababta muxuu yahay hadalku uu jeediyay iyo codsiga caalamka uu dirsaday barnaamijka aad ku maqli doontaa bilowna qodobka ugu horeeya barnaamijkeena aroornimo saakay Israa'iil waxa ay dhaqan gelisay qorshihii ay muddo badan ku taamaysay Netanyahu iyo kooxdiisa wasiirada ay ansixiyeen oo ahaa inay doonayaan maamulka iyo maamulista Gaza oo dhan inay la wareegaan waxa ay qaadeen shalay weerar weyn kaas oo dunida oo dhan aad u la yaabay waxayna ku tilmaameen weerarkan inuu yahay midkii lagu soo badbaadin lahaa dadka Israa'iil laga haysto isla markaana Gaza looga saari lahaa kooxaha iska caabinta waxa ay Netanyahu iyo kooxdiisa dhaqan geliyeen qorshaha loogu yeeray Haniba oo ah qorshe ay hirgeliyeen sanadii 1980kii oo xilligaas Israa'iil dagaal adag ay la gashay dalka Lubnaan xilligaas Israa'iil waxa la sheegay in looga qabtay ciidan badan qaar kalena looga dilay haddaba shalay maxaa dhacay xalay musiibo weyn ayaa lagu waramayaa ciidanka Israa'iil inay ku habsatay xalay militariga Israa'iil waxa ay dagaal adag kula galeen kooxaha iska caabinta marinka Gaza gaar ahaan xaafadaha loo yaqaan Al-Sabra iyo Saytuun xaafadahani waxa ay Israa'iil gaar ahaan Saytuun ku galeen dagaalkii ugu waqtiga dheeraa oo foolka foola oo dhexmara militariga Israa'iil iyo kooxaha iska caabinta sida ay warbaahinta caalamka tabinaysa Al Jazeera iyo kuwa kale militariga Israa'iil dagaalkaas waxa looga qabtay ilaa iyo hadda in la xaqiijiyay 4 askari waxana ay warbaahinta qaar tabinayaan in tirada inta ay ka badan tahay waa askarta nolosha lagu qabtay ilaa ay hadda inta la xaqiijiyay oo suurtagal ay tahay inay ka badnaan kartana waa 11 askari oo kale ayaa Israa'iil nolosha looga dilay macnaheedu waxa ay tahay tirada dadka laga haystay hadii ay markii hore 20 iyo wax ku dhow ay ahayd hadda way sii badanaysaa waxaana soo baxaya warar kale oo sheegaya dhaawaca ciidanka Israa'iil inuu aad u badan yahay inkastoo tirada rasmiga ah ilaa hadda aan la haynin waxaana la arkay diyaaradaha gargaarka militariga Israa'iil oo halka ka daad gureynaya dhaawaca ciidanka Israa'iil isla markaana u sii wada marinka Gaza kani ma ahayn baa la leeyahay dagaal caadi ah waxa uu ahaa dagaalkii ugu waqtiga dheeraa oo si toos ah ay isu food saaraan ciidamada Israa'iil iyo kooxaha iska caabinta ee Gaza ka dagaalamaya waxa uu ahaa dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ilaa iyo 7 Oktoobar sanadii 2023 xilligaas oo ciidamada Israa'iil ay dagaal la galeen kooxihii iska caabinta ay soo weeraray gudaha deegaanada Israa'iil ay ku sugan tahay xilligaas oo Israa'iil dad 100 iyo dhowr qof ay sheegtay in looga dilay 100 iyo dhowr qof kalena laga soo qabsaday kuwaas oo ay hadda qaar kamida dadkii laga soo qabsaday xilligaasi gacanta kooxaha iska caabinta ay ku jiraan dagaalkii xalay dhacay Israa'iil iyo Saaka oo ciidamo looga dilay qaar kalena looga qabsaday waxa uu ahaa mid la sheegay inuu dirayo fariin adag
oo Israa'iil ay adag tahay in niyadda iyo moralka ciidankeeda waqti badan uu ka kabto. tani waxay ahayd baa la leeyahay dharbaaxa aysan fili karaynin Israa'iil iyo Netanyahu kooxdiisa oo ciidan fara badan halkaas ku soo daldalay, kuma yara qalab, kuma yara rasaas, kuma yara hub, kuma yara diyaarado, laakiin maxaa dhacay xalay wax aan la filaynin aqligooda u qiyaasi karaynin ayaa halka xalay ku qabsaday. waaya aanu toos u gudubno qodobka xiga barnaamijka. militariga Israa'iil waxa lagu waramayaa qiyaana aysan malaynaynin in xalay halkaasi loogu dhigay iyo shalayba markii uu dagaalka bilowday. waxaynu dul istaagi doonaa maxay tahay khiyaanada iyo farsamada yaab kale ee loo degay taasoo keentay tirada dhimashada iyo dhaawaca iyo afduubka ciidankooda laga afduubay ama laga qabsaday inuu kor u kaco. markii uu dagaalka bilowday kooxaha iska caabinta waxa ay soo baxeen baa la yiri iyagoo banaanka koox ah, laakiin waxa ay ka duwanaayeen sidii hore. maxay sameeyeen? waxay wateen dharkii militariga Israa'iil, tuutii militariga Israa'iil. waxa adkaatay baa la leeyahay ciidamada Israa'iil diyaaradooda iyo taangiyadooda inay kala garan waayaan midka uu yahay ciidanka Israa'iil yaa Israa'iil militarigooda ah yaa kooxaha kale ah. waa ay kala garan waayeen maadaama isku dhar leeyahay. haddana Falastiiniyiintu iyo Israa'iiliintu midab ahaan lama kala saari karo oo waxa ay noqotay wax la kala saari waa. Israa'iil mararka qaar Carab u dagaalamayso, Duruus iyo kooxo kale u dagaalamaya, ciidamada ajnabiga u dagaalamaya. midab ahaanna inta badan way isku egyihiin ama way isku dhow yihiin. taasna waxay keentay baa la leeyahay dad isku dhar ah mararka qaar Israa'iilna ciidamadooda xabadeynayeen dhexdooda, taasoo jahwareer badan dhalisay. farsamadan ayaa waxa ay keentay baa la leeyahay in dagaalku uu ku dheeraado, dhimashadu ay ku badato, dhaawacana uu bato. taas oo u keentay dagaalkii waqti aan loogu talagelin iyo qiyaas aysan militariga Israa'iil u fakarin in halkaasi uu ka dhaco. haddaba goobaha dagaalku uu ka dhacay gudaha Gaza waxa la sheegay inay ugu darnayd xaafadaha Al-Sabra iyo Saytuun, goobtaas oo ku taala gudaha marinka Gaza. militariga Israa'iil ayaa hore u filayay in ay doonayaan waqti kooban gudihiisa inay Gaza ku qabsadaan xaafadaheeda ugu badan, laakiin sida hadda muuqato dagaalkan waxa uu qaadanayaa waqti dheer. haddaba maxaa ka dhacay xaafadaha Al-Sabra iyo Saytuun sida ay warbixinta Al Jazeera iyo qaar kamid ah warbaahinta Israa'iil iyo kuwa caalamkaba ay tabinayaan? waxa ciidanka Israa'iil laga qabsaday kaliya dad nool maahan, meydad iyo dhaawac kaliya maahan khasaaraha halka ka dhacay. waxa lagu waramayaa in qaar kamid ah ciidanka Israa'iil isgaarsiintoodii, qalabkii ay kula xiriirayeen askarta kale iyo hoggaankoodii iyo dharkoodii iyo qaar kamid ah qalabkii ay wateen in halkaasi looga qabsaday oo la arkayay in looga qaatay. waxaana taa ay keeni karaysaa baa la leeyahay in habkay u dagaalamayaan iyo qorshahooda iyo sirtooda Israa'iil wax badan gacanta looga dhigay. sidoo kale militariga Israa'iil shalay waxa ay la kulmeen baa la leeyahay xalayba jahwareerkii ugu darnaa kadib markii kooxaha iska caabinta iyagoo koox koobana ay meelo kala duwan uga soo baxeen gudaha Gaza. si kastaba ha noqotee walaalaha qiimiga leh dagaalkii xalay socday iyo shalay ilaa saaka ayaa la sheegay inuu yahay midkii ugu adkaa militariga Israa'iil oo halkaasi dhibaato weyn uu ka soo gaaray inuu yahay. waxayna warbaahinta iyo dadka falanqeeya arrimaha bariga dhexe ay tilmaamayaan in dagaalkani uu aad ugu egyahay midkii Israa'iil ay gashay sanadkii 1980 oo ay la gashay ciidamada Lubnaan. walaalaha ay saaxiibada qiimiga leh waxay noo soo socdo qodobo ay ka mid yihiin khudbadii iyo hadalkii cajiibka ah ee uu jeediyay afayeenka garabka military Hamas Al-Qassam Abu Ubayda Mahmoud Abbas maxaa ku dhacay iyo qodobo kale ayaad maqlaan. aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya barnaamijkeena aroonimo. hogaamiyaha Falastiiniyiinta Mahmoud Abbas ayaa lagu waramayaa dharbaaxa kale inay ku dhacday isagoo aad iskaga fogeynaya kooxaha iska caabinta ee Gaza ka dagaalamaya, horena ugu sheegay inay yihiin eeyo. waxa ay saacadu warwareegato oo socotaba saaxiibadii shalay ayaa maanta waxa ay ku noqdeen waraabaha subaxnimo. waxaa Mahmoud Abbas hadda lagu waramayaa in gabi ahaanba laga mamnuucay inuu soo galo Mareykanka, isagoo laga baangareeyay ama laga joojiyay dalku galka dalka Mareykanka ama viisaha waxa loo yaqaano. Mahmoud Abbas ayaa isku diyaarinayay qorshaha shirweynaha ka dhici doona magaalada New York ee dalka Mareykanka, halka oo la filayay dawlado badan oo reer Yurub ah in ay ku dhawaaqaan bisha 9aad aqoonsiga dawladnimada reer Falastiin. xilligaas oo wadamo badan ay sheegeen in ay filanayeen in Mahmoud
Cabbaas iyo kooxdiisa ay aqoonsadaan loona gudbo dowladnimo reer Falastiina laakiin Maxamuud Cabbaas oo isagu u muuqday nin mar walba isku dayay in qaab ka duwan qaabka ay kooxaha Gaza ku sugan u dagaalamayaan ama ay uga falceliyaan xiisadda bariga dhexe gaar ahaan xaaladda adag oo ay wajahayaan dadka Falastiiniyiinta inuu isagu u wajaho waxa uu mar walba muujinayay in uu wax ku doonayo wada hadallo uusan ku doonayn xoog iyo dagaal uuna ka duwan yahay kooxaha ka dagaalamaya Gaza waxay ahayd mar aad loola yaabay dhowr bilood ka hor khudbad uu jeediyay in kooxaha ka dagaalamaya Gaza Xamaas iyo kuwa kale uu ku sheegay inay kuwa aad u liito oo sidii xayawaanada ah taas oo dad badan oo Falastiiniyiin aad ay uga caroodeen iyadoo xilliga ciidanka Israa'iilna ay dhibaato iyo burbur badan ka geysanayeen gudaha Gaza isku soo duub hadda Maxamuud Cabbaas Mareykanka uma safrayo fiisii waa laga mamnuucay cunaqabateen ayaa la saaray xaalad adag ayuu ku jiraa Israa'iilna waxay leedahay waxba iskuma kay dhaamaan Maxamuud Cabbaas ama kooxda PA Palestinian Authority iyo Xamaas iyo kuwa kaleba hadda waxa uu leeyahay waxaan u soo jeedinayaa caalamka in laga raro xarunta qaramada midoobay New York wadan kalena loo raro ma sheegin wadanka loo rarayo laakiin waxa yaab leh sidee ku suurta gali kartaa in xilligan laga raro xarunta qaramada midoobay magaalada New York laakiin waxa ay tani muujinaysaa in Falastiiniyiintu ay kala qaybsanaashooda qasaaro badan ku ahayd Maxamuud Cabbaas iyo kooxdiisana ay dhibaato weyn Falastiiniyiinta u geysteen hadda isagu waxa uu taagan yahay banaan cidla ma haysto dadkiisii reer Falastiin reer galbeedkii Israa'iilna banaan cidla ay uga tageen waa kan saaka meel cidla kaligii qaylinaya khudbad aan la dhageysanayna jeedinayo qodobka ugu dambeeya barnaamijka Abu Ubayda afayeenka ururka Xamaas ee ku sugan Gaza ayaa waxa uu jeediyay hadal uu ugu magac daray jawaab uu ka jawaabaya isku dayga Israa'iil ay ku doonayso in ay ku qabsato Gaza waxa uu sheegay Israa'iil waxa ay ku riyoonaysaa riyo aan weligeed hirgelaynin kooxaha iska caabintana waxa ay u diyaar garoobeen buu yiri dagaal walba iyo waqti walba uu qaato waxayna la kurmi doonaan buu yiri dharbaaxa kulul Abu Ubayda oo khudbadiisa wata waxa uu yiri cadowga waxa ay halkan ka daldalan doonaan ama ay ka arursan doonaan dhaawaca iyo meydka askartooda Netanyahu waxa uu leeyahay xisaabtu waa ay ka qaldantay waxa uu wajahayaa maalmo dhib badan ay Israa'iil la kulmaysaa waxaan diyaar u nahay buu yiri si walba iqaab walboon ula dagaalami karno kooxaha iska caabinta inaynu ula dagaalano haddaba dagaalka ka socda Gaza waxa uu saameeyay ciidanka Israa'iil kaliya ma ahan baa la leeyahay dhimasho iyo dhaawac laakiin niyad ahaan ayuu u saameeyay telefishinka ruushka laga leeyahay RT oo baahiyay muuqaal laga maqlayo rasaas ka dhacaysa qoryaha daran dooriga u dhaca ee iska caabinta Gaza ay adeegsanayso ayaa ku waramay in weerarka ay xalay ku qaadeen iska caabinta Gaza ciidanka Israa'iil oo ah mid toos ah ay u muuqanayaan inuu yahay weerarkii ugu cuslaa oo taariikhda oo dhan ay Israa'iil wajahdo dagaalyahanada Carbeed kaliya ma dagaalyahanada Falastiiniinta taariikhdeeda dagaal Carab ee la gasho kii ugu adkaa xalay inay gasho ayuu tabinayaa telefishinka Russian Today loo yaqaano iyadoo la badinayo in askar nool gacanta looga dhigay ay ka badan yihiin 4 askari lama sheegin ilaa ay tirada saxda ee la xaqiijiyay warbaahinada qaar waxa ay xaqiijinayaan 4taas askari walaalaha ay saaxiibada qiimiga leh wixii ku soo kordho wararka ku aadan weerarkii xalay Israa'iil iyo saaka ay la kulmeen barnaamijka xiga ayaad ku maqli doontaa